بسم الله الرحمن الرحيم ومالين خميسة لبدا بيشا كواد لبدا كون يلباتن سند وناكسن حق بصومي شركي قلها وزيرة دولة بونتلان وشرك دومية مدحوينها دولة بونتلان مدن سعيد عبد الله الدني أو هليو مدحوين كحجين كدولة مدن أحمد علمي عثمان كراش أرهمر دورة يا شركة لوجه هذلي وحلقوا بلاوي حالة دجود أمنية بونتلان وأدو وناكسن يقرشياش دين أمنية السعودة وزارة أمنية أيا قلها لو داكتي هول قلدا أمني يجودهان أمنية جود بونتلان حالة ديسا وميل وناكسن مريا iyo sida ay u kala horeeyaan qorshayaasha dhinaca amniga iyo tayeynta ciidamada iyo si guud amniga guud ee Puntland wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iyana golaha la wadaagtay xaaladda guud ee gobolada Puntland maamul baahinta nabadaynta iyo mideynta guud ahaan shacabweynaha Puntland ee socota waxyaabaha kale ee laga hadlay waxa kamid ah 8 Janaayo oo ku aadan sanad kadib markii la doortay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni sidii loogu diyaar garoobi lahaa xuska 8 Janaayo oo toddobaadka soo socda ah iyo waliba qorshayaasha lala iman doono guddi ayaa jira arintaasi golahu u saaray oo ku saabsan in ay diyaariyaan qaabkii markaasi loo soo gudbin lahaa waxqabadka guud ee dawladda muddada sanadka ah iyo waxyaabaha qabsoomay iyo waliba qorshayaasha dawliga ah ee sanadkan cusub la hirgelinayo oo loo kala dooranayo sida ay u kala muhiimsan yihiin arrimaha waxbarashada ayaa laga hadlay iyo tayeyntooda wasaaradda waxbarashadu waxay golaha la wadaagtay dadaalada waxbarasho ee socda iyo waliba qorshayaasha hor yaala iyo waliba waxyaabaha ay ku saleynayso baahiyaha waxbarasho oo ay muhiim tahay in dadka la gaarsiiyo in guryahooda waxbarashada loogu geeyo in la gaarsiiyo deegaanada fogfog ee Puntland dhulka laamiga ka baxsan iyo waliba qorshaha istiraatiijiga ay u yaala waxbarashada guud ee Puntland lagu horumarinayo wasaaradda duulista hawada ee garoomada ee Puntland ayaa golaha uga warbixisay garoonka diyaaradaha cusub ee laga hirgelinayo magaalada Gaalkacyo garoonkaasi oo ay Puntland ka caawinayso oo ay fulinayso shirkadda CCECC oo dalka China laga leeyahay waxa uu qayb ka yahay mashaariicda horumarineed ee shirkadaasi ay ka wado Puntland meel wanaagsan ayuu marayaa iyadoo la filayo in maalmahan soo socda uu bilowdo qorshaha horumarinta ee Puntland ee 5 sano soo socota ayaa wasaaradda qorshaynta ay la wadaagtay golaha waxa socota diyaarintii ugu dambeysay qorshahaasi iyadoo muhiimadda la siinayo baahiyaha horumarineed ee ka jira deegaanada kala duwan ee Puntland oo markaasi la midaynayo oo markaasi loo kala qaybinayo siyaabaha ay u kala muhiimsan yihiin iyadoo ay muhiim tahay in Puntland ay muujisay in qorshayaasheeda horumarin ay ku salayso hadba baahiyaha deegaanada ka jira waana qorshaha 5 sano horumarinta Puntland oo wasaaradda qorshayntu ay soo diyaarisay golahu waxa ugu hambeliyay bulshada Soomaaliyeed iyo si gaar ah dadweynaha reer Puntland sanad guurada sanadka cusub ee 2020 oo uu golahu u rajeeyay Puntland midnimo iyo amni iyo ummadda Soomaaliyeed horumar iyo midnimo Soomaaliyeed iyo nabadgelyo iyo xasilooni guud ahaan dalka ka hirgasha aad iyo aad u mahadsantihiin